dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku eedeysay maamulka galmudug ee Soomaaliya dagaal maanta dhacay sidaan cadeynano ama aan xogta mataqaanay aan ku helay Malaysia deegaanka mataqaanay galmudug oo fikir nabadgelyada iyo cadawtinimo mataqaanay xambaarsan ururka alqasaas xiriir la leh ayaa mataqaanay soo abaabulay soo waxay galmudug waa ay ka gaabsatay eedahaas inay jawaab ka bixiso مسؤولك أمانك أقابل سن دولة دجانك الصومالية إثيوبيا يا وحى وشاقي إن ميليشيات الصومالية كتر سنة أي ويررين بيجري دجانو إثيوبيا كمدة وأنسيس وفوين حتى لبض ودن ده بس فاهمت أنت هسي نوجنا يا وريها بي بي سي حسن عبد الله هيبة وهو تليفونك كل حيري مدحه هو جان كان بدجليده دولة دجانك الصومالية إثيوبيا ياسين عبد الوريس أو ودي برينو وجور رمو سيدي أي وحد عين adaan faahfaahinkaas iyo gobolka Doolo degmada Jalaadi qabalaha Dacmeer ayaa saaka 12 subaxnimo ayaa weerar waxa ku soo qaaday deegaanka nimanka dadkii deganaa shacabka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya weerar ku soo qaaday booliska dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa marka taqaanay hawsha ay maqleen halka gurmad degdeg sameeyay marka halkaan cadawgii soo weeraray dadka shacabka aan waxba galabsanin inay badbaadiyaan mataqaanay tagay marka halkaan dagaal bay la galeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday markaana maleeshiyadii laga saaray aagii maxaa khasaar oo ka dhashay dagaalkaasi kulay annaka xagganaga saddex shacaba meesha way ku dhimatay laba shacabana way ku dhaawacantay askari booliska uu ku shahiiday hal oo laga dhaawacay laakiin khasaaraha u badan kulay xaggoodu inuu ka dhacayo darbaaxa aad u kulay gaadhawaan waan filaynaa waan dareemaynaa laba gawaari oo waaweyn oo mataqaanay kuwa teknikana waan ka gudnay waxaa jira dagaal qabaa'il ku salaysan oo ka dhacaya deegaanada ka agdhow deegaanka Soomaalida oo dhanka Soomaaliya marka ma dagaaladii qabaa'ilka ku salaysnaa ayaa lugta la soo galay deegaanka maya kaasuqii maaha kan waa ku كدول ومتقناي وجهنا كله وحاول سواء عضينا أما نحكت متقناي عن كل الله عن صاحب دكتور ماليزيا دلالة متقناي جلمدك ورقة على القصاص متقناي حرير له أيام سنة أولي سنة وحية متقناي لما كان أشيد أيران ومعمول كجلمدك إن أي متقناي جيران كصومالي قيمة كم بين متقناي على كل ذي كتاجن أي طبعا حتى كور اسكو دايان iyadoo ku iyo laba iyo saddex ahayn dadka weerarka soo qaaday alqushash bay xiriir la leeyihiin baatri maxaad ola jeedaa ereygaas waxaan ola jeedaa dadku al-shabaab u yaqaan laakiin anagu alqushash baan naqaanaa waxaad soo hadal qaaday ururka al-shabaab iyo dawlad goboleedka galmudug labadooduna way dagaalamaan marka haddii aad noo kala cadeyso yaad la dagaalamaysaan anagu waxaan la dagaalamaynaa ururka al-shabaab iyo galmudug oo mataqaanay isku oo midaysan oo mataqaanay wajig dagaalamayaan anagu aanu la dagaalamayna taa waxa ku cadeyn karta galmudug waa al-shabaab geedan loogu soo gabanin al-shabaab weeye hadii ayna isleedahay al-shabaab baa la dagaalantayna al-shabaab waxa la dagaalamay Puntland baa la dagaalantay horta oo al-shabaab la dagaalantay shirxadkii yaraa ee ka soo cararay mataqaanay miya waxaan kala aan la dulmafay hadii ay fiisleeyihiin leeynooga waan ognahay kaasaan cadeynayna inay al-shabaab yihiin maxaad ku cadeynaysaan marka waxaan ku cadeynaynaa al-shabaab way la dagaalami lahaayeen hadii ayna al-shabaab ahayn al-shabaab way la dagaalami lahaayeen dagaal ay la galeen oo cad oo mataqaanay inta aan ka dilay intaan waa ka waxaynay basaan waanu kula dagaalanay yaa la arki lahaay oo cad hadda marka maxay idin qorshaa anaga waxaan loo qorshaa dawaacad qorshaa lagu cad yahay anagu nin ururka argagixisada ma raba nabad nagama dhaxayso bartii joogaana waan ku weeraraynaa deegaankanaga iyo dalkanaga waanu difaacanaynaa iyo dadkanaga cidii dhulkanaga noo timaadana hadalkeed beedsada ياسين عبد الوريس مدحه هوغانك أمنية دولة دجانك الصومالية إثيوبيا